ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xamse Cabdi Barre ayaa maanta daahfuray qorshaha qaranka ee kaalinta haweenka ay ku leeyihiin amniga iyo xasiloonida dalka oo ay soo diyaarisay wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuqul insaanka. ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre oo ka hadlay munaasabadda ayaa wuxuu si qoto dheer ugu hadlay doorka haweenka Soomaaliyeed ay ku leeyihiin nabadgelyada iyo amniga iyo sidoo kale gurmadka abaaraha. saakadan hadda waxaan ugu hambaleynayaa taliye xijaar waa joogaa inay duulaan qaadeen oo meelo cad adag oo ay fadhin jireen oo ay basra ka mid tahay ay ka xoreeyeen oo ay fogeeyeen weliba eryeen insha Allah wayna sii daba socon doonaan waana ugu hambaleynayaa way ku mahadsan yihiin. sideedaba maxaan ku qanacnaa shabaab inay yihiin shayaadiin oo ay ilmihii jahannamo yihiin oo xababu jahannamo yihiin oo shayaadiin yihiin oo ay waajib tahay in lagu jihaado oo lala diriro ma daliil baan u baahannahay. midka shalay hiiraan waxaad aragteen ka samaynayay ma daliil u baahan in lala diriro ma in kitaabka iyo qur'aanka wax looga raadiyo u baahan yahay waan soo celin laanahay marka maxaan u dagaalami laanahay xagee laynaga hayaa guushii way bilaabatay guushu inay bilaabatayna waxaan ka garan meeshaan ka soo galayay raadadkii guushaa ku yaallay gabdho Soomaaliyeed oo buskidkii iyo muqmadii iyo biyihii diyaariyay baan ku soo maray meesha oo ciidamadooda u daamanay waxaan hubaa inay bilaabatay mar hadday gabdhaha Soomaaliyeed bilaabaan waa bilaabatay guushii iyo in laga adkaado cadawga waa bilaabatay. munaasabadda sidoo kale hadal ka soo jeediyay gudoomiyaha gobolka Banaadir duqa magaalada Muqdisho mudane Cumar Maxamuud Cumar Firish ayaa sidoo kale ka qayb galay daafurka qorshaha qaranka ee ka qayb qaadashada habeenka nabadeynta iyo amniga dalka. gudoomiye Cumar Firish ayaa munaasabadani khudbad ka jeediyay ayaa xusay in haweenka Soomaaliyeed ay lafdhabar u yihiin nabadda iyo horumarka bulshada isla markaana ay door muuqda ku leeyihiin dhismaha dowladnimada dalka. mudane ra'iisul wasaare adiga iyo xukuumaddaada iyo shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan bulshada Banaadir oo aan codkooda ku hadlayo waxay taagan yihiin garabkaaga sahay kama rabaan xukuumadda saanadna kama rabaan dhaqaale kalena kama rabaan kaliya waxay rabaan xukuumaddu inay hor kacdo xuraynta dalka taasoo xaqiiqdii aan aaminsanahay anigu in dalkeenu uu ka xuroobo dameerlaawayaashaas kaliya inay ka dhiman tahay in la aado ayaga xaggooda. Nuur Bashiir, Banaadir TV, Muqdisho.